gonna sing when the spirits sing. I'm gonna sing when the spirits. munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa mudane cabdilaahi maxamuud oo ka tirsanaa golaha deegaanka ee degmada Sadak loogu doortay inuu noqdo duqa degmadaasi. xafladan oo ay ku sugnaayeen xubnaha golayaasha deegaanka ee xisbiyada Labourka iyo labada xisbi ee hay'adda waddankan Ingiriiska xubno ka mid ah jaaliyadaha Somaliland iyo Soomaaliya ayaa waxa si rasmi ah loogu soo casuumay telefishinka caalamiga ah ee Home Cable TV. doorashada kadib oo aan Maayir Cabdilaahi weydiiyay dareenkiisa ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan ugu faraxsanahay koleyba because meeshii dadkii waddanka lahaa ee Ingiriiska ku noolaayeen ayay tusaale u noqotay inaan dhaxgalnay oo aan meelo jago waaweyn ka qabsanay oo maxaa dadkii Somaliland iyo Soomaalidii kaleba siday ugu nooshahay wax aan ka qaybsanay waddankii. maraan Maayir Cabdilaahi weydiiyay maadaama uu wada u heli karo madaxda sare ee waddankan Ingiriiska asal ahaan uu ka soo jeedo qoomiyadda Somaliland waxa uu ka qaban kara qadiyadda Somaliland ayaa waxa uu ku jawaabay ta ugu horeysa waxa weyn warta xiriirkii Somaliland iyo Ingiriiska ka dhaxay weyna wanaagsanadaan waxaan doonayaa aqoonsigii horta la raadinayay ayaan doonayaa meel ka gaarno siyaasaddaasna sida kaliya u gaari karna waxa weyn hadii aan laga dhaadhicin karo dawladdii iyo dadkii Ingiriiska yani Somaliland iyo Soomaalidu waxay shaqada imika ku jirto meeshay heerkay marayaan iyo nabadgelyada waddanka leeyihiin iyo taageerkii u baahan yihiin waana tusaaleena marka taa kuleba xagaas way naga wanaagsanto waan xoojinaa arintaas aad baan xoojinaa. munaasabadan lagu dooranayay Maayir Cabdilaahi Maxamuud ayaa jaaliyada Soomaaliland iyo jaaliyada Soomaaliya ee ka soo qayb gashay ayaa waxa iyaguna ka muujiyeen dareenkooda hadaladoodina waxa ka mid ahaa aad baan ugu faraxsanahay in maantay Councilor Cabdi loo doorto Maayir waa nin aad u soo shaqeeyay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay waxaana u mahad celinayaa xaaskiisa Caroline oo aad u support gareysay marka waxaan leeyahay congratulations anigoo ku hadlay magaca jaaliyada Somaliland ee Wales ee Cardiff waxaan u mahadnaqayaa Home Cable TV sida sharafta leh uga soo qayb galeen oo uga duubeen waxaan halkan ku hambalyeeyaa maayarka cusub ee Sadak Cabdilaahi Maxamed oo leeyahay hambalyo iyo xaaskiisa waa markii runtii waa taariikh markaan waa munaasabad weyn. Maayir Cabdilaahi ayaa noqonaya maayarkii labaad ee reer Somaliland ah ee laga soo doorto magaaladan London. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil Home Cable TV Sadak London.